kulanti wacan oo wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhegeystayaal idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadli doono dhibaatada musuqmaasuqa iyo sida looga hortagi doono. waxaa barnaamijka igala qayb qaadan doono qaar ka mida mas-uuliyiin iyo waxgarad aynu ugu talagalnay in ay barnaamijkana la falanqeeyaan. waxaana sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan sheeko aynu ugu talagalnay saameynta musuqmaasuqa uu leeyahay qaybteeda koowaad. waxaa qaybaha dambe dhegeystayaasha u ballan qaadaynaa in dhanka fikirka ay dooda nagala qayb qaadan doonaan iyagoo markaasi ka hadlaya fikradooda ku aadan waxa musuqmaasuq uu yahay iyo inta barnaamijka intii uu socdoba ay ka bartaan. barnaamijku waxaa tabin doonta idaacadda Banaadir waxaana soo qaban qaabisay hay-adda Markhaati. qaybta ugu horeysa waxaan ku horumarayaa barnaamijkan aynu ugu hortagno amba loogu talagalay ka hortaga musuqmaasuqa sheeko gaaban oo xiiso badan qaybteeda koowaad. inaan qalabkeena aan qaadano oo aan alamitada aan aadnaa sababtoo waxaan ugula baahan yahay saakin alamita aan galno maalmahanbo saa alamitada u aadayso wax walba aa sii ordayay lafaha xanuunayaan saakin iska jiiftaa rabaa waxoogaa xaaladeeda ashma aan laakiin idhiis waa bixinaa waa israacina diyaar waaye ada hooyahana maqashiin hooyo alamitaan iska dhaafi maalin kasta ku leedahay laakiin inaan baxno alamiteeno waaye sababtoo waxaan rabnaa inaan kulamo fiican soo ciyaarno dibadda noola qaado ciyaaraha weyn aan kasoo qayb galno haddii aan iska joogno horumar gaari mayno. maasha allah dadaalkana waa muujiyeena waa soceena qofka bini'aadamka haddii dadaasho oo dadaalka muujiso in badan xoogaa dadaalaha wuu gaaraha maqli jira marka adi maalin kamid ah anagoo ka ciyaarayna qaaradda Yurubna waa gaari doonaa xulka qaranka Soomaaliya noola wadaay insha allah marka dadaalka maanta inaan badino waa oo aan sii xoojin hooyaan dhaadana alamitada iska daay hayaa dhaheena laakiin anagana hooshana sii wadaheena. laakiin haddii alamitada ku guuleysato aad safar dibadda baxdo oo ciyaaryahanada waaweyn aad ka mid noqoto lagu arko naadiga jeceshana u dheesho ani Afrika inaan dhaaforto mar raba Afrika dalalka ugu waaweyn inaan ka soo muuqdaan jeclahay in badan oo kubadeeda cagta ah marka iyo xulka qaranka dalka Soomaaliya inaan kabtan u noqdo oo xulka hogaamiyaha koowaad ee xulka loogu dhaarto inaan noqdaan jeclahay marka rajada koowaad taa waay oo qadka dhexsi weyn aan ugu ciyaaro haatan waa ogtahay kubadda maalin walba aan ugu daba cararay oo lugtu wax iga soo gaarayeen gacan wax iga gaarayeen marka horumarka inaan xulka qaranka hogaamiya aad u jeclahay rajada inta salaga kugu jirto inaan xulka hogaamisaba kabtanka xulka in la doorto aniga waa tahay laakiin uma leeyahay adiga waa subax waa hurdiyo subax waa kacay waxa la rabaa subax kasana kacda la rabaa adi ileen musuqmaasuqna xoogaa meelaha uu ku jira haddana musuqmaasuq imaanin ani waxaan ku rajaweynahay inaan xulka aan adi meel wanaagsan aan ka tiigsado oo aan meesha ugu fiican ileen kabtan meel loo dhaaf ma lahan ileen haddaa kabtan noqoto kadib xulka waa ka duqoobaysaa waxaa noqonaysaa xiriirka dadka mida marka insha allahu tacaala kabtannimada inaan aniga aad ugu rajaweynahay kabtanka xulka qaranka Soomaaliya inaan noqdo oo wargeysada caalamka idaacadaha TV-yada si weyn laga bubuniyaa ciyaartaada kalsooni ku qabtaa heerkaas inaad gaarto laakiin uma leeyahay sababtoo ah maartay macallin walba qof wata qofsha ku wataa marka iska dadaalayna saasay taana waxa waaye maalin kasta sagsaan iyo balaayo waxba gadaa horuna ma socotide bal alamitada iska badi alamitada badiyena ileen dadaal aantiis horta wax sucaaya ma lahan ileen xulka qaranka dalka Soomaaliya waa mar walba waa la baxaa dadaal la wadaa haddana dadka waa isbedel lagu sameeyaa ani waxa dhacayso maalin kamid in dadka qaarkood la reebo aan booska soo galno marka anagana booska aan ku soo baxno marka waa soo saarayna marka soo saaritaan ilaa hadda ku jirnaa marka waxaan wala badiyaa marka maalin kasta qaranka waa baxaa
dad naga waaweynaa la qaadaa, kuwa naga horreeyaa la qaadaa, kuwa kasii horreeyaa la qaadaa, mar kasta qaranka waa laga soo badiyaa. marka mislada hadda adiga baxdo adigoo kaligaa rajaa keenaysa qaranka waa badin karaa. xulka sida loo baahan yahay haddii laysku wado waayo xoogaa haddii tuqfalo duleeliskan layska dhaafo xoogaa in adeerobaa meesha joogay iyo abtiyaa meesha taagan haddii layska dhaafo xoogaa waxaa is dhihi karaa guul waan gaari karnaa. meesha ugu muhiimsan oo aan jecelnahay oo koobka adduunka inaan ka qayb qaadano Soomaaliya sidaan aniga filayo weligeed koobka adduunka ma ka qayb qaadan oo xoogaa dalalkan Afrika, Ethiopia, Ribayn iyo Kenya iyo Djibouti oo dariskeena ah. marka haddii adiga musuqmaasuqaan xoogaa oo tuqfalo duleeliskan barnaamijyadan in adeero la iska joojiyo aada aniga ku rajaweynahay inaan xulkeena meel fiican aan ka tiigsano. marka adigana xoogaa almeetada subax walba isoo kici qofka haddii aniga horyaalka booska hela horyaalka dalka aan booska hela ah Sersia waxaan dheeloyaa 1 sano marka maba gudbooyiba ma aqaan macalinka ma ay u kacsan. marka waxaa laga rabaa adiga tayada intaad u gudbin bal adiga dadaal samee. hadda adiga Serie A dheelo oo maaragtay qaran in lagu daray rajada ay fiican tahay mugtahay bal adigan ku fiirina hadda adiga horumar sameeyso waan sii wada aniga laakiin ilama ah in adiga horumar sameynayso. horumar maxaa u sameeyay hadda Serie A handa ka ciyaaraay Sersia ka soo dheelay Serie B ka soo dheelay intaas kubadeeda maalin kamid Keenaysa la meel Keenaysa marka haatan marka kubadda gabagabay maraysa xaaladda soo qaado bixi leeyna sagsaantaadi waxaa soo qaado bixi leeyna soo qaato laakiin hooyaan qabaay waa xoogaa muran ka dhacda dhici karta meesha inta u dhilmaysan subaxnimo waa camal iyo saas waa camal laakiin dhib malan adaa xoogaa hadliisan kabay يورثتها في عني الحمد لله جوي كورن بقول خيري قرات هي maxaa ku diyaarsan maxaa ku tala gashay maxaad u diyaar garowday halkee rabtaa qaabkee rabtaa macnaha inaad u dagaalanta dagaala ku yaalo waa ogtahay horyaalka ku soo hayo waa la isku dhagan yahay waxaa la rabaa dadka aad xulanayso xulkii ma ku diyaarsan yahay maxaa agab oo diyaarsatay ii sheeg xulku ii diyaarsan yahay horta nin dagaal ku jirana jiif uma yaalaba sidaas darteed xulashaan sameeyay team diyaarsan oo la oran karo teamkan Soomaaliya waxay gaarsiin karaan guul weyn aan diyaariyay wali waxaan u xushay ciyaaryahan walba tayadiisa iyo aqoontiisa iyo khibradiisa iyo da'diisa aan ku xushay waxaan ku sheegaa in gaaw ma ku jira in aflaam ma ku jira in gacmo dheer ma ka tagtay waa ka tagay maala dad xushay marka tayada aawe taya loo baahan Soomaaliya waxa rabtaa sameysatay wadada rabtaa martijidka rabtaa sameysay macnaha adiga ma wax xushay adiga ma raba macnaha ina meel gaarto adiga ma ku tala galay inaad dad wax iska tiraado hadda ina gaaboway hadda ka tagtay yaa rabtaa marka ina kaxayso ii sheeg ina gaawo in adeero ma lagu wadaa taya ma la subax walba almeetada ma imaado almeetada ima waan ku baryaa subax walba almeetada ima wuu fiican yahay laakiin ina almeetleen ayad ma qaadanayo maqle adiga macnaha almeetada ina adiga aragta ma guriga ku almeentay kara ma qayda dhabarkiisa ku almeentay meelo badan ku almeentay maalinka saniko ciyaar ma amaleysa kooxda inuu la qaato waa ninaan kooxda la qaadin almeeto kooxda loogu diraa warnin habeenkii almeentay oo casarka almeentay oo duurka almeentay oo maqaayada meelaha aragta fadhi majlisyada ku almeentay waa ninku ma ahan inuu maalin kasta ku hortaagna aad ma aragto in almeentiisa aragto almeetada ina arka muhiim waa inaad arkin adiga say u qaadanay waa loo baahan yahay ina aragta almeetadiisa oo qiimeeyo tayadiisa hadduu almeeto lahayn oo orod lahayn kubad kaliya oo qabto wax ku matereeda raacashanina leen garoon ma gelinay sababtoo ah dadkaas soo xushay almeetan ku soo xushay nin aan raacasho leen dadkan soo xushay kuma jiro hadduu ciyaaryahan raacasho leeyahay leeyahay ani waxaan ka rabaa saddex hadii laga waayo waxa soconayn waay ma ilaaha saddexdaa nin haddii aysan meesha ka dhex muuqanin wax soconaya male warqadaana ma gudbaysa meeshaas ay oleysaa warqadan way gudbay saddexdaanina hadda adiga jaranjaro inta la fuusho jaranjaro inta la fuusho gey warqadaa ninkay soo mar maqal adiga warqadaa ninkay soo mar leed waa aniga ama dadka u danayne ama macnaha adaa danaysana ama dantaa noo wada soconaysa mooyaane anna danaysa maayo adna kuu danay maayo ee xulkan u danaynaa xulka haddaa u danaynayso warqadan jaranjarada sidii lagu saar lahay ayadaa la isku haystaa warqadan haddaa musuqmaasuq wada waa la arkaa dadkaas taye ma leh in adeero ma lagu gelin karo biri sumcadarada ninka kusoo dhaceeda ani waa adiga maamulaa tahay laakiin guuldaraaday soo gaarto ninka wax laga weydiinaa waa macalinka iyo dadka kooxda waday furuq haddii la arka waraabo farka dhuuqu noqdaa dharbaaxsho aniga ugu dhicin kuma soo gaaraysa adiga kow ninkay kasoo bilaabanaysa waa aniga adiga hadday u badato meelaha lagu shiraya lagugu weydiinaa laakiin ani wey markii lasoo laabto dadka qof walbay arkaan ninka wax weydiinaa ani waay horta yaa ku yaqaana dadka anaga ku baranay yaa ku kasaaya dadkaad i bartaa maanta sumcad ku leeyahay yaa ku yaqaana yaa ku kasaaya ii sheeg 24 qofooda ku taqaan 24 qofood haday u badato 24 qofooda xulka aan wada taqaan xitaa kuwaasa sharafi ah waxaan ku sheegayaa adiga kaaf xuna isku halaysa ala kulli xaal warqadaas warqada cidii jaranjarada saar lahayd geeyleed xafiiska la imow
waa la arkaa haddaa kaaf micnaha adi aad ka taliso xubin le ka tahay mintiina soo afaystayo musuqa dabargoynayo sharciga meel marinayo mareegtiyo dabinka dhigan ismoogaan ha ugu dhicin ismoogaan ha ugu dhicin diyaara ahay saaka xoogaa waa caraarsana xitaa oo bilowga hore cajcajisa iga muuqda laakiin haata inaa baxaaba rabaaba oo aalimiitada in badan maanta aan ka gaarsiiyo ileen waxaa maqlooyaa mar dhow waa la bixi rabaa xulka bixi rabaa maqlaba xoogaa waraa xalay dhegta laygugu dhibciyo marka inaan xoogaa saaka as diyaariyo waaye diyaara ah hooyana bannaankay fadhidaa maanta wallahaaday ku taallaa marka waxaa u sheegi lahayd hooya bannaankay fadhidaa marka adigii hooyo lee waaye xoogaa adi waa la ismamarsiiya adduunkan wax walba xoogaa adi mamarsiyo malaweyhaye adi na socosiya adi na socosiya tartiib soo baxno mabana dareemaysa mugtaa tartiib soo baxsa haye xaggee jaakadaha loo wataa saake waana la qabto wallah may hooy waxaan rabnay xaafad meeshaana aadna rabna waa soo noqonayna waa waray xaafadaha aa loo qaataa boorsooyin miya iyo jaakado maya inta baashaal le waa maana maya almiitaa ku dhimateen habeenay maalina ordaysiin waa almiiteynaysiin war hee dhahaye sooma ogdiin dalka inuu musuq maasuq ka jiro adeer iyo abti iyo awowal isku wada sooma ogdiin annaga waxaana la yidhi dadaala qarankaa nigula daraa hadda walaalkay waa kana seri a waaye anigana serisiyan soo marooyaa marka hoy niidaha noga jabinin haye oo mara adna siiyaad mare iyo sii maka gudbaysiin maalin habeen isiya ii sheegtiine sidan masiyaaro socaysaa maya markaan oo gudbaynaa hooyo rajaan leenahay marka waxaan rabnaa inaan soo ciyaarno African Cup of Nation inaan soo ciyaarno sanadka dambe aniga waa jeclahay inaa xulka qaranka Soomaaliyeed safatiin laakiin waxa suurtageleen walaalkeena ma joogo aabihiin walaalkiisana meesha ma joogo ilma adeeraan la isku wada wiilaliyo inay iga daalino tartiib iguna sitiin oo badarkan iska bixina idin roon horta taas way jirtay markii hore waa maqli jiray xoogaa musuqmaasuqa meelaha ka jiro laakiin haatan ani waxa is dhihi karaa in markaan Zeerbi aan mar leega soo gudbiyay oo hadana Zeeri A imaado hooyo in markaan rajada ay fiicanto xulka qaranka ani leegu diri rabo maalma socdo la soo codsar waa codsiya wala soo qortaba ani waa badhow waa maqli doonta taas wallahi bishaare noqolad laakiin waxa suurtageleen hadda daa socotiin anu hooyadiina ahoo horumarkiina lugooykum ihi orda guula idin rajeenayaa laakiin idaha naga jabin hooyo tan kale ma guula idin rajeena laakiin adik inaad dadtiina wax tiin waad ogaa laakiin dad idin ka horeeyno musuqmaasuqa magaaladan yaale aniga mar hore wax qabsan lahaayo orda adikana soo daala hadda waa kana horyaalkii lagu qabanayay isbartiibada goolelinta walaalkay qaaday xamar la dhex wareegay meel kale maqla ma jirto ee orda xulku waa maqlay mar dhow waana la wada insha Allah Allah idin sahlay orda haddana idin ma diidani mintiina soo afaystayo musuqa dabargoynayo sharciga meel marinayo mareegtiyo dabinka dhigan ismoogaan ha ugu dhicin ismoogaan ha ugu dhicin والله هو وحشيس إنه حاجة صورة قلوها سببته هذا حلتان كاس عمر وصل شيء هذه يعني أرت حالي والسودها مقلة لكن إلا هذا قف إلى هذا شعرين تسمجرته وبرامج كأجل شيء كيستي والله إني هذا حلتان كاس عضو مارك أنا معلنكو إيش شيء وحول حلتان كاس عضو وأنا اللي سكول جينيه مركو اللي سكول جينيه وفهمه
ani horta banaanka alaaba nin oo waxaa aziir ahay marka adiga waxaa taa ziirziiba iska dhaafurta adiga waa ani in la xulaa umalayaan dadku ugu horeeyana kamid noqdo laakiin maba haray aniga ilin lugtida ku kalsoonaa aniga qofka bini'aadam lugtida ku kalsoontaana heer way gaaray walaan rajo fiican aan qabaa aniga inta baxalay soo dhimaay naqalay dhimaay sidaan iska ciyaara laakiin adigu Serie A isku malay ama naqal u yiraahdaa maba suurtagalba ma ahan nin Serie A si loo celiyaa adduunka waa la isqiimeeyaa ninka doonadigu hadda naadiga u dheelo waa ogtaa Serie A xulka waa dhee sanadka hore meeqa laga tagay oo laacibiina oo qaranka wax u qabanay laga tagay oo la yiri aalmita ma yimaadaan iyo dhaawac waaye been la yiri laga tagay dad aan naqaano weligood boona ciyaarin la geeyo dibaas u dhunteen nasiibka isaaciday wax walba nasiibkayga ka weyn adiga wax walba marka nasiibka isku dayi doona inuu isaacido hooyana ducadeedu weena garab taala mar walba hadda waxay dadaalin dhahda maanta xogaa rajo fiican inoo sheegto hadii la dadaal xogaa heera gaaraysiina dhahda marka wallahi waa arki doonaa kulli nasiibka aan fiirnayna wallahi wadanka heerkan buu marayaa wax la kala xishoonayo male cadcadooy indhaha faraha iska gelinaa suninka indhaha faraha uga gelinaa horta cunugeerka ina hebel ku jiraa ina hebel ma waday saa ku gudbin laheedaa laga rabaa saa inta usoo marin laheedaa laga rabaa waxa annaga nala haray waa musuqmaasuqaan oo aan meel aan u gaari la-aanahay oo wadamo aan waxba ayn dhaamaan aysan jirin 10 goola lagu soo dhuftaa maqlaysaa 11 loo soo dhiibay dhibaatadan haysataa intaas ah goormee macnihii annaga aan ka talaabsan doonaa musuqmaasuqaan oo dad xor aan noqon doonaa madaxaabana laga haystaa majiyana loogu daro waa rafaadsanaa waa yaabanahay goormeen ka bixi doonaa waxaan aan ku jirno ciyaartooydan aan soo xushay waa kuwa tayo leh ninkan iska qeylqeylinayo wuxuu ujeedadiisu ay tahay in adeerkiis in loogu daro oo in adeerkiis oo taariikhda u gasho xulaan matalayo Soomaaliya u baxayo Masar la ciyaaraysay guul darana soo gaartay intaas inuu baxo diyaaradaas raaco raba laakiin aniga waxa isma keelay macallin sumcad lahan ahay Soomaali ujeedka u qabto waxay tahay inaan guul gaarsiiyo ninkan hadoo ay keen in adeerkii ku dar asoo arkay warqada inta farta ka saara leh in adeerka iyo wixii kula dhasho dhan ka buuxiyo diyaaradda saaro annaga iska casila shaqadaas warqadan hadda u geeyna hadda ugu soo celiyna go'aan kale ma jiro hore iska casila haye waa yaabana wala nin meeshaan wuxuu ii keenay aniga liisan wada iyo warqadan keena iyo hebel maxaas ma shaqeynay ina gaabo laga taga aday ku taalaad warqadan waa warqadii ciyaartooyda bixi doonta tartanka kaaf soo ciyaari doonta sakaafa waa ciyaartooy gaari ilaa 24 ciyaariyaan oo qarankan u soo xushay horyaalada kala duwan Zereeda Zerebida iyo Seresida inta waan ka soo xushay waa ciyaartooy tayo leh oo guul gaarsiin kara qaranka Soomaaliya ii kaadi marka oo kuma maba ku macnaha magacyada aan ku sheegay maba ku jiraan magacyadaas waan ku sheegay maxaa loogu soo daraa maxay qabanayaan adigu maxaa qabanaysaa aniga xulkaanaan mareena ciyaartooyda garoon galeeda ninka safila ani waa ayagana isboortiga mareynayaan hadii adiga ku garoon galaya aad safaysid macnaha arabta inaad safto adiga ma waxa diyaar u tahay in 9 gool lagaaga soo badiyo hal kulan 9 gool 11 gool wax ninka keenaaba adiga ninka 11 kulan aniga ma wadin kulankii labaad aan wada kulanka hore barbara min hala soo galay kulankaana guulaan ku rajaweenay adiga ay qasoosid ina gaago ina faaraxay waxaad wadaa wax xulka qasayo macallimiinta hore isku casileen warqadahan meeshaad geeylahayd geey hadee sidaas tahay anna warqadeeda is casilida waa kan macallin kala magacaabo macnaha aniga kuma casilaay warqad casilaadna kaama qaban adarabta ku tirtir istiraasha ka dhigo warqadahana meesha ka keentay geey hay wala arkaa tartanka laga baaqday musuqmaasuqaad wadaan ukaadi warnin dheero waa ku maqlaa maanta dhan ku maqlaa waxa ku hadlays haye gabar baa timid nin xishoonaya ma tihid miya ninka wadanka wax horumarin lahaa meeshii laga rab inaa wadanka horumariso oo adiga hormuud u noqotid maxay taa waxa ku hadlays xishoodka dhan markii ugu horeysay erayga xishoodba ninka bilaab aniga Soomaa hadda bilowdo maxay taa waxa ku dhaqmaysin aan waxba aqoonin oo sidii looga keenay maxaa la baadiyaas looga keeno banooniga xataa macnii aaba in si loo laada xataa aqoon waxa leedahay lagu daro kii wax yaqaanaha laga tago oo ninka baadiyi kamid yaa korba qaybta ay soo gaarayso wadankaaga inay taa soo ma ogid maxaa marka macnii inaa ree hebel ka tanaasulshad ku diiday marka fiiri wadanka inaa horumarisid ku diiday horta wadan daacad wax ugu qabto waxaan ku sheegayaa adiga yaa u shaqaysaa aniga waxa la yiraahdaa Madiino musuqmaasuq diid meel walba musuqmaasuq ka jiro waa soo jiidanaysaa yaa ku soo sheegay adiga waaba soo jiidanaysaa meel walba musuqmaasuq ka jiro haye kaas magacayga Madiino musuqmaasuq diid marka waxaan ku dhii lahaa inta gadaal u laabatid maskaxdaada ku laabatid
wadankaaga horumar waxa aqyaamaysid waa dadkaaga iyo dalkaaga dib isugu laabo wallaahi horta qofkan waxay sheegaysaa horta waa wax gara waa sax waxa aan qiyaamaya waa dadkaygii waxa aan qiyaamaya waa dalkaygii waxa aan horukaca u diidanahay waa ummadayda wallaahi arrinkaasi waan ka qoomameynayaa sida ugu dhaqsaha badan ilaahay idinkii waxbaan ka bedeli doonaa xaaladan waadna mahadsan tahay waana kaa qaatay maanta kadibna iguma ogid musuqmaasuq waxaad igu ogtahay inaan dalkayga u shaqeeyo inaan ummadayda wax taro waxaa ballanteenu tahay musuqmaasuq diidnay musuqmaasuq diidnay Dunta idina balgudi hatarda u shaqaysa Dunta idina balgudi hatarda u shaqaysa Dunta idina balgudi hatarda u shaqaysa Dunta وهكاك برنامج كتضبات كان وحامرتي يقول حير علي روبلي فنان اللي يقان رير مقدشة ان مرنا أبوان رواية سمية شيكوين سمية ان حير وحينو كهالينا وبرنامج مرتي كاقا مسوق ماسوقا ereyga musuqmaasuq horta af Soomaaliga corruption igaaladu tirado laakiin musuqmaasuq la yiraahdo iyo dhibka uu leeyahay marka hore musuqmaasuq jalci horta ereyga muq iyo maasuq waay macnaha waa xad loogu talagalay inuu samarin shaygaasi markaad ugu talagashid caagan in aad biyaha ku shubto caaga haddii aadan ku shubin caaga ee aad dhulka ku shubto macnaha waad musuqmaasuqday sababtoo ama uusan marin wadadii uu lahaa waa adeega bulshada ama ummadda wixii loogu talagalay oo aad u marta qaab kale oo waddo kale u dhigato danta dalka ama dadka horumarkiisa ina aad ka hormarisid taada horta awali ma musuqmaasuq waay waana dhibaatada ugu badan ee dalka Soomaaliya haysata kasoo bilaabato maalinkii aan xorriyada qaadanay ilaa hadda xornimada dalkan loo helay iyada laftigeeda helisteeda laftigeeda musuqmaasuq ka bilowday sababtoo waxay heshay dad aan rabin in ay Soomaali isqabsato oo la saftay gumaystihiya jiray mafahmaysaa ayada laftigeeda inay israacdo oo Soomaaliya mid ay noqoto ayada laftigeeda musuqmaasuq ka dhex yimid marka waxa isleenahay waa wax uruujina dadka jirkooda ku beeranba in ereyga musuqmaasuq oo dadku ay inta badan u isticmaalaan maanta qofka aad la shaqayso oo maanta $100 lagugu soo dhiiba adiga marka uu yiraahdo 20 oo la haraya marka musuqmaasuqa waxa leeyahay nolol maalmeedkii endemiga oo noqday jirkii bini aadamku kala leeyahay waa marka see looga dhiidhin karaa oo arrimaha bulshada iyo mujtamaca looga baraarujin karaa inay musuqmaasuq ka hortagaan waxa looga baraarujin karaa waxay tahay horta waa in la tuso qofka horta asaga awoodda uu leeyahay haddii aadan ogeyn adiga awooddaada aniga muwaadin Soomaaliyeed baan ahay maanta askariba ima handadi karo oo sharciga iguma handadi karo qof arrimo qaasale ima handadi karo qof hantideeda u socda ima handadi karo qof nafteeda u socda ima handadi karo wuxuu igu handadi karin waxa waaye waa in aan ogaadaa in aan ahay nin muwaadin Soomaali ah waxaan ku ogaadaa waxay tahay hadda ka hor Kenya oo jooga Nairobi waxaa dhacday caag aan biyo caafi ka cabay ayaan tuuray 12 jir wiil ahay qabtano horma istiqaado gali halkaan kurid wuxuu ii muujiyay wadaniyadiisa waxa ay tahay 12 jir annagu qashinka guriga inta ka soo xaqnaan banaanka soo dhignaa gurigan ka soo baxsanayna jidkan soo dhigaynaa caag biyaha aan ka cabay inaan dhulka dhigo waa leeytid ma fahmaysaa waxa waay qofku waa inuu ogaadaa ninkaasi wuxuu ogaadaa waxay tahay in uu yahay nin wadani ah aniguna aanan wadanka lahayn awoodna uu leeyahay inuu tuso dhaqankiisa ama awoodda dalka uu ku leeyahay inuu 12 jir ah qaado dhig halkaas geli halkaan loogu talagalay no istaraatiijidka maya in Soomaaliya marka aan ka hadlayno dalka Soomaaliya sharciga caalamiga ah ee la dagaalanka corruptionka ee dunida heshiisii ay ka saxday waxa ugu dambeeyay oo saxay koonfurta Suudaan Juba
soomaaliya oo intaasoo sano jirta ilaa imika lama saxiixin sidee marka looga samata bixi karaa sida musuqmaasuq haddiiba dowladdu aysan heshiiskaa saxiixin waxaan kuu sheegaa dowladdu waxa ka maqan shacabkay ku jiraan ummadday ku jirtaa markay hii toosan kugu aragto way kuu raacaysaa waxaana waa horumar waa tiigsi waaye waa waxa adiga arabta inaad samayso aniga iyo adiga iyo iyada iyo asaga haddaan ka ballanno macnaha inaan ka hor tagno musuqmaasuq inaan ka hor tagno diidno wax walba oo corruptiona oo ku imaan kara problem keeni kara in aniga macnaha nafteydii la musuqmaasuqo haddii loo helo dad isku tiirsan wax musuqmaasuq imaan karaa ma jiro adooga saddexda wiil ee uu dhalay haddii nin walba gooni loo helo waa la cunaya laakiin saddexdooda markay isku xirmaan ay saas isku laabtaan cid nuuxin kartaa ama wax dhaqaaji karaa ma jiro haddii tallaabo walba ee loo arko in macnaha waddanku wax ku soo kordhayo ama arrimo muhiimad u leh ay tahay ahmiyad haddii dadku ay ka midoobaan waxaan u malaynaa wax musuqmaasuq imaanaya ma jiro haddii canshuuraadka la ogaado qaabka ay ku baxayaan askarigu marka uu kaa qaado ma tegayaa xaruntii loogu talagalay ma tegayaa xilliyada qaar maamulkaa la eedeeyaa waxaa laga yaabaa maamulka degmada in la eedeeyo in maamulkii gobolka la eedeeyo haddana eedas aysa ayagu ku dhicin ee kuwa hoose aysa soo dhaafin xafiiskiiba aysa soo gaarin askarigii jeebkiisiba ay soo gaarin askarigii jeebkiisi ay ku dhacdo intii yaroo ka soo dhacda xafiiska ay ku dhacdo xafiis muxuu helayaa marka waxaa leeyahay maamulku ma sameeyo cashuurtii waddada jidkeeda ay lahayd lama marsiiyo okay haddii marka askartu iyo maamulku ay la shaqeeyaan oo si toosa wax walba siday u soo qabatay ay u keentay xafiiskeedii waddadaas wuu toosaya xayar ugu dambeyn sidee musuqmaasuq oo dhan dalka Soomaaliya looga ciribtiri karaa sanada musuqmaasuq oo dhan waxa dalka Soomaaliya looga ciribtiri karaa heshiis iyo ogaan dhaxmara shacabka maamulka degmada maamulka gobolka iyo madaxda sare ee dalka isku xirnaan dhaxmarta ayaa looga talaabi karaa aad umaasan tahay qaybaha qaadka telefoonada dhageystayaasha lagu gudbayaa xayar barnaamijka iyo marti noogu ahaa wamaasan yahay markaasi gacan ka geysanaysa hay-adda markhaati idaacadda banaadir ee magaalada muqdishona waad ka dhageysanaysaan qaybaha dambe qaadadka telefoonada dhegeystayaasha fikirka ayaan fursad siin doonaa wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhece ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo waddaha eh loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo waddaha eh loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay ninkii maamula hantida markooyinka horumarkiyo maaraynta danguud la rabay mashaariic lagu dhiso manaafiicsado shacbigu haddana meel kale la mara ayaa musuqmaasuq galay ninkii maamula hantida markooyinka horumarkiyo maaraynta danguud la rabay weli waxaynu bartan kaga jirnaa qaybihii dhexe barnaamij gaar oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqa uu leeyahay iyo sida looga hortagi doono markan waxaa qadka telefoonka igu jira oo fursad aan siinayaa danjire cayndiruus oo ka mid a dadkii ka soo shaqeeyey in badan dhanka dibadda islamarkaana iminka ka mid a xisbiga USR waa guddoomiyaha USR bal marka horeete waxaa iga hadashaa danjire dhibaatada musuqmaasuqa sida looga hortagi karo aad
aada u mahadsantihiin raadiyo banaadir waana arrin muhiima runtii arrinta musuqmaasuqa waxa ku saabsanna barnaamijyo u qalma lagama sameyn xagga maaragtay raadiga ama saxaafadaba dhaqankeena soomaalida marka fiirisina wax walba nolosheena musuqmaasuqa ku jiraan hataa guriga dhexaysa musuqmaasuqa ka jira oo waxaad arkaysaa aabe xaafidku dhahay wiil iyo gabadh labadaba asaga dhalay haddana waxaad arkaysaa gabadhu inay tahay wax eedaysan dhibaataysan xuquuqda aabaha xataa looma ogola haddii uu dhinto waxa la tirsanayo waa rag marka in waxgalkii dumarka ay lahaayeen ama hooyo ah ama dhalayso ama ay ku dhaxayso ama walaasha ay tahay midda kuugu fog ay gabar soomaaliyeed tahay xuquuqda ay leedahay waa laga musuqmaasuqaa markii dowladii maamul soo gaartana qaab qabiil qofka academic performancegiisa maanta kasoo qabo gobolka baraada qof baa loo magacaabaya muxuu kasoo shaqeeyey 700 oo horumariyey aqoontiisa intay eg tahay academic performancegiisa lantiirnahay uusu ku yahalaley taas marka waa musuqmaasuq la isku bedelayo qof mas-uula heer howl qaran qabanaya ayaa loo arkaya reeradu intaasay heleen soomaali marka wax ka dhexeeya dowladii lahayn jirin geela unbay lahayn jireen geelaas ay lahayn jireen qaasku ku yimaado laftarkiisa wuxuu yahay burcadnimo lama arkin xarimey ama loley diradaysa geel midkii xoog badanaa iska lahalayiis muxuu ahaye biyihiisa waa dagaal tooskiisa waa dagaal xiintiisa waa dagaal macnaha saddexda waxyaabood ee ugu liita dhaqanka markii la fiiriyo wiil iyo geel iyo faras oo kaleeto faras dameera ka sarreeya wiil gabadha ka naxariis badan muxuu ahaye geel caaw qof kulii waxba kama siin karta laakiin ariga laagood markuu jiro luuq bariisuu gooyaa xataa dhaqankeenia marka wuxuu yahay dhaqan ku dhisan isbuusi iyo sabuusi ilaa loo bixiyo dowladnimadeena hasheena maandeeqa hasheena maanwaala waayo macnaha sistamka waan u qaybsanayno sistamka aan iskugu xirannahay nin la jecel yahay kitaabada qiil looguma waayo diintigii xataa nala gashay nin la jecel yahay sheekita kitaab sii qeel loogu helaya macnaha maskiinka ayaan kitaabka lala tiigsan karaa nin la jecel yahay kitaabada iyo fikirtantii lama dana maaragtay lama dana tago waa naargeeyaan hadduu la dana tegayn waxaasoo dhan waa musuqmaasuq isu soo wada xoori dhaqankeena wuxuu ku dhisan yahay dhibaato aada u weyn anoo maanta dinjiro noqday anoo maanta waxbarashada anoo maanta aqoonyahana soomaaliya ugu xisaabtanayso ayaa waxaa laga yaabaa in aan meel ugu xirahay nabadoonka dhaqanka bulshada nabadoonka wixii maaragtay nabadoonka wixii maaragtay xeera nabadoonka horan buu qabtaa laakiin qofkii siyaasadda xataa inuu soo galo uu noo gudoomiyo oon asaga u loganahay musuqmaasuq ka mid tahay dhibaato aada u fara badan oo soomaalidu soo dilootay ayay ka mid tahay qof inuu isku hadlayn karo qaab qabiil heer uu gaari karo inuu qof u dhigmo walaalkiisa u dhigi kara diigaa tahay wallahi intaan ku dilo yani qofigaaga meesha laga qodaayo gaas kusoo qaadanaya ciidda laga bixinaya haddii isoo gaartana qofkii ciidda ka bixinayaan dilaya waa qof hadlayn qabiil waa musuqmaasuqa ka mid tahay marka danjire cindiruus maxamed cabdi marka aynu ka hadlayno arrintan ku aadan musuq maasuqa way badan tahay laakiin sidee bulshada u ogaan kartaa in ay markaa ay la socdaan oo ay ka hortagaan oo ay diidaan sidee bulshada looga dhacsin karaa qofka marka ugu horeysa inuu ka bilaabo isaga naftirkiisa wuxuu qabsan karo inuu xaq u leeyahay lasu wuxuusan xaq u lahayn wixii xaaraan ku ah oo ummad guud wada leedahay iyo wixii asaga uu leeyahay ama dhaxal uu ku helay markuu isku koobi karo ay gurigii ka bilaabataa macnaha qoysku si loo maamulay ka bilaabataa beledka si la iska ilaaliya ka bilaabataa xaqa waxaad leedahay inaad ku ekaatid ayaa musuqmaasuqa kuu diidi kara wax walba oo khayrka u dhow kana fog xumaanta markaad samaysid kula shay laqrab ila socod waabcad min alfasaad hada huwa fuqahaa lislam fi siyaasa xataa siyaasadda markay tahay waxqabadkaagu waa inuu noqdaa wax kasta oo ka fog xumaan una dhow khayrka inaad samayn kartid ilaa gurigii ilaa noloshii ilaa jaarkii ilaa wadadii ilaa shaqatagaagii xaqa aad leedahay xuduudka aad leedahay inaad garatid baa musuqmaasuqa laska ilaalin karaa kadibna laga xakameyn karaa qofka dadka ku samaynaya waa mahadsan tahay danjire cindiruus maxamed cabdi guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka u s r oo markaasi isna barnaamijka igala qeyb qaadanayay isla markaana dhanka musuq maasuqa wax badan inoo faa'iideeyey oo inoo sharaxay waa mahadsan tahay
maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban haddaba iminka waxaan qaadka taleefanada u furaynaa dhegeystayaasha barnaamijkaasi marka ay dhanka fikirka nagala qayb qaataan barnaamijkan gaarka aynu kaga hadlayno dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida corruptionka looga hortegi karo waxaana dhegeystayaashu ay naga soo wici karaan taleefanka eber 6 5 eber 778 waa eber 6 5 eber 778 sidoo kale waxay naga soo wici karaan taleefanka 644 iyo 642 intaba way naga soo wici karaan uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga marsataan micnuu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco ayuu musuq maasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkoosi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon qaybaha qaadka taleefanada dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinayaa haddaba dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaa si fudud si aad dooda uga qayb qaadato taleefanka eber 6 5 eber 778 isla markaana aad fikirkaaga u dhiibato dhegeystaha ugu horeeya barnaamijka ayaan fursad siinayaa halow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سألك عبد العزيز عبد الله محمد حيلي حبيبي في المقامة هي أصحاب المسؤولين في الدولة الحربي دي المرشد كانوا كان بشيء برنامج كان كسر قاعدتي الله هلا سألك بلا بلا wanaagsan oo wacan marka hore walaal magacaaga iyo deegaanka aad naga soo wacayso هذا سألك ماذا أقول من أيضا عبد الرحمن إبراهيم حاشم اللي يقال باشيرة سمعت كان برنامج شبه كان مكتوب ما نبالي كل haddeed barnaamijka la socotay soo dhawow fikir ahaan sideed u aragtaa laaluush in shaqo lagu fududeeyo ما تنسى سألك عبد العزيز عبد الله الريمي قرأت حالي لا يا بس ما سوق سيد باب بركة وحيابها كثيرة مدالنا محدشوا haye إن بدل عبد العزيز مثل ما سوق مدالنا محدشوا يكون بنفسي واحد أركيسا أفكارهم أنها عن كثر سنة الدولة بصيرة الكصومالية وهذيك إتكتر تاجن أو بريسي وحي وطاوطنيه باوريه أو وجينا وحيابها أنا أعرف أيضا كلهم نفسي أنا أقول لي توجد بالكان من قارئة يا عم بنيسيكا يا عم مثالها كان من قلت أنا أقول إنه سوء إنه عم كل شيء عم بجيب يسافر يمكن نفسي waan gartay adoo dulucda aadaya marka sidee u aragtaa laaluush in shaqo lagu fududeeyo سألت أنا وحنا أركا إن قلبنا صحيح لأنيش أنا عايز أقول شوية خلاص إنه صحيح وحنا عارفة في اللي بدينا يا إن الولد بصير الكصومالي أي واحد كخلاص ما موجود يجيبون إذا كان يسوي يجيبون أنا والله عارفة فقط هاي إنه كخلاص weli ma isku dayday inaad barato qodob ka mida dastuurka oo ka hadlaya qaabka loola xisaabtami karo dowladda سألت وين يسوي نرمال waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaya dhegeystayaal kale ayaan fursad siinayaa weli waxaynu bartan kaga jirnaa qaybihii dhegeystayaasha qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halow salaamu calaykum وعليكم السلام walaal magacaaga iyo deegaankaad naga soo wacayso magacaygu waa faa'iiso dhool waxaan joogaa suuqa xoolaha see lagu yahay
si fiican oo lagu wanaagsan yahay. ay barnaamijka la socotaan umlaynayaa haa soo dhawow wadiyaad barnaamijka la socotay marka hore waxaan ku weydiin lahayn sidee kula tahay laaluush in markaasi shaqo lagu fududeeyo sidee u aragtaa rumaantii walaalkay aniga ilama wanaagsan taas weliba waa wax laga yaqiiqsado sababtoo ah wadankeena Soomaaliya kaliya taas midaas ay gaar u tahay laakiin wadamada kale waa laga yaabaa inay saas yihiin dhibaatada musuqmaasuqa uu keenayo maxaad nooga sheegi kartaa والله راح تظن واي يعني waxaan kamid ah dadkii oo isna haye wax badan waay waa maasan tahay waan kaaga mahad celinayaa sida haboon iyo weliba qaabka barnaamijka aad nagala soo qayb gashay dhageystayaal kale ayaan weli fursad siin doonaa si ay barnaamijka markaa noogala qayb qaataan barnaamijkani waa barnaamij gaar oo in kaga hadlayna dhibaatada musuqmaasuqa uu leeyahay dhanka farsamada waa farsamayaqaan qadar xuseen axmed qadar yare iyo weliba nasra cabdikariin xuute waxaa barnaamijka la socodsiinaya anigoo cabdicays cabdullaahi maxamed riyeeli balse iminka dhegeysta kale ayaan jeclaan fursad siiyo si uu barnaamijka nagala qayb qaato halo asalaamu calaykum galab wanaagsan soo dhawow walaal magacaaga iyo marka hore deegaankaad naga soo wacayso kadibna dooda usoo gudub waan dhawahay walaalkay waa qaali cabdisalaan axmed oo ku magac dheer maxaa dhahay degmada hilwa gaalijan qaadis caadadeeda shaqanta haye in badan walaalkay dooda waan la socday macnaha musuqmaasuqa macnaha kaleetaba waa dhib macnaha aan dowladda ka tirsaneyn insana xigidka istaagaya dadkii macnaha lacagta ka qaadanaya kaleetaba dhibkeeda leedahay hadhowna dhibaato fara badanaa ka imaan karta soomaalidana waxay uga qaban kartaa arrinkaas gacmaha qabsatay marka haddii aan ku weydiiyo ma sheegi kartaa dhibaatada uu keeni karo musuqmaasuqa haddii uu sidan u socdo ama musuqmaasuq uu dhaco dhibaatada ka imaan karta maxaa ka mid ah in badan dhibaato badan ayaa ka imaan karta taasoo ah inaad dowladda ka tirsaneyn macnaha waxa cadeyna watan arag macnaha dadkii dowladda ka istaaga dhibaato badan ayaa ka imaan karta macnaha dadkii iskhilaafo dadkii macnaha amar la-aan oo ku jiro dhibaato badan ayaa ka imaan karta walaalkay ma isku daday weli qodobada dastuurka ku qoran ee ka hadlaya musuqmaasuqa inaad wax ka akhriso ama in aad ogaato qodobada sheegaya in dowladda lala xisaabtami karo aniga weli iskuma aan gelin waa maasan tahay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha qadka ku jira ayaan jeclahay fursad inaan siiyo halow salaamu calaykum calaykum salaam waraxmat walaal soo dhawow magacaaga iyo marka hore deegaankaad naga soo wacayso aadaa u dhawahay waa idin salaamaya idaacadda banaadir inta dhegeysanaysa magaca Hussein Xarbi iyo xaafad Sanaa barnaamijku waa la socotaan u malaynayaa galabta aynu kaga hadlayno dhibaatada musuqa uu leeyahay aada weyn walaal aad haye sidee looga hortagi karaa guud ahaanba musuqmaasuqa aad is leedahay wallaahi walaalo horta inta badan ay dadku isku tiirsan yihiin inay dhacdo haye dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal waan jeclaan lahayn in uu barnaamijka nagala sii qayb qaato balse dhegeystaha xiga ayaan jeclahay fursad inaan siiyo halo asalaamu calaykum dhegeystahaasi waxaan leenahay raadiya iska fogey amba iska bakti si aan isku maqalno maadaama uu aad kugu dheereysan yahay sidaa daraaddeed suuragal naqamayso barnaamijka inaad nagala soo qayb gasho amba aad nagala qayb qaadato dhegeystaha xiga halow galab wanaagsan halow dhegeystahaasi isna nama uusan maqlin qaybihii dambe ee barnaamij gaar oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqa ayaynu dhegeystayaal bartan kaga jirnaa oo dhegeystayaashu qaadka taleefanada ay kaga qayb qaadanayaan galab wanaagsan magacaaga walaal iyo deegaankaad naga soo wacayso dhegeystahaas isna qadka ayaa ka go-ay dhanka farsamada ayaan jeclahay markaan inaan u gacan haatiyo wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkoosi kale
inta ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ee galabta aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuqmaasuqu uu leeyahay idaacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaad ka dhageysanayseen waxaa barnaamijkan gacan ka geystay hay-adda markhaati waxaana barnaamijka igala qayb qaatay oo aan mahad gaara uga celinayaa sheekh isxaaq xuseen mursal gudoomiye ku-xigeenka culimaa udiinka ahlusunna ee koonfurta soomaaliya iyo weliba sidoo kale danjire cayndaruus maxamed cabdi oo isagu ah gudoomiyaha xisbi siyaasadeedka USR labadaba way mahadsan yihiin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaashii dhanka qaadka teleefanada barnaamijkan kaga qayb qaatay iyo weliba labada farsamo yaqaan ee barnaamijka inoo farsameynayay waa soo barnaamijka Abdicays Cabdullaahi Maxamed Riye wadile inta barnaamij midkan lamid ah aynu kulmayno raadiyo banaadir markhaati iyo dhammaan dhegeystayaashaba nabad geliyo kana mahuraanayo wadaha loogu dhaco